wafdi ballaaran oo ka socday waddanka Somaliland kana kooban suldaano garaado xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ayaa soo gaaray waddanka Djibouti waxayna dalka Djibouti waqooyigiisa magaalada Tujara kaga qayb galeen caleemasaarka suldaanka 34aad ee dadka canfarta ah ee dega waqooyiga Djibouti. wafdigani ayaa waxay ka koobnaayeen suldaano garaado iyo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida waxaana sidoo kale wafdigani wehelinayay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti. xaflad suldaan lagu caleemasaaro oo ahayd tii ugu ballaadhneyd geeskani Afrika sanadadii la soo dhaafay ayaa ka dhacday waqooyiga waddanka Djibouti ee magaalada Tujara waxaana guud ahaan xafladaasi ka soo qayb galay xukuumadda Djibouti oo uu hogaaminayo madaxweynaha Djibouti. markii ay soo dhamaatay xafladaasi caleemasaarka suldaanka dadka canfarta ah ee dega waddanka Djibouti gaar ahaan magaalada Tujara ayaa waxaa telefishinka qaranka Somaliland la hadlay qaar ka mid ah salaadiintii cuqaashi garaadadii ka soo qayb galay xafladii caleemasaarka suldaanka 34aad ee dadka canfarta ah ee dega waqooyiga waddanka Djibouti. garaadale salaadiin leh xildhibaanale guurtida macaamiisharle tijaarle ayaan ku nimid waxaanu u nimid qortooyada la caleemasaaraya maanta ee 34ka annagoo ka kooban wafdi dhan oo reer Somaliland halka waxaanu u nimid inaanu kala qayb galno farxadda suldaan caleemasaarka iyo farxadda suldaan cali xabiib lagu caleemasaarayay magaalada Tujara. suldaan cali suldaanka Tujara taariikhda markaad ku noqoto canfarta 34 suldaan bay marayaan markaa waan hambalyeynaa suldaanka Tujara intii martiqaad aad u qiimo badan baa loo sameeyay annaga iyo waftigii ka socday Somaliland markaa waxaan leenahay suldaanka cusub ee la caleemasaaray suldaanka Tujara ilaahay xilkaadee ha kugu asturo suldaan nabadeed noqo geeska Afrika runtii waxyaabo badan baa ka taagtaagan laakiin insha Allah ilaahay idinki waxaan filaynaa in suldaanka suldaan nabadeed noqdo suldaan runtiina sida la sheegay waa saldanad fac weyn dalka Djibouti magaalada Tujara waxaan kaga qayb qaadanay caleemasaarka suldaanka suldaan cali oo suldaankii 34aad ah waxaan leenahay kii ilaahay dadkiisa ba anfaca ha ka dhigo iyo geeskaba halkan wafdi ballaaran baa ku jooga oo Somaliland ka yimid oo madax dhaqameedkii culimadii siyaasiyiintii ganacsatadii inta way isugu jiraan runtii maanta waxaanu nimid magaalada Tujara oo lagu caleemasaarayay suldaan cali oo suldaankii guud ee beelaha ama qabiilka ballaaran ee canfarta markaa waxaanu runtii si fiican baa lagu soo dhaweeyey waxaanu mahadcelinaynaa dhammaan shacabweynaha reer Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii xafladana qayb ka ahaa uu joogay iyo dhammaan sida naloo soo dhaweeyey waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagu wafdi ballaaran oo salaadiin iyo culimo isugu jira aanu nimi xafladana si fiican bay u dhacday aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan shacabka reer Djibouti si wanaagsan ee qiimaha badan ay noo soo dhaweeyeen. Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.